maanta in al-shabaab iyo al-shabaab laga dhex saaro hay'adaha amniga iyo dawladda wax jahawareer badan baa laga kulmay laakiin waa suurtagal malihi suurtagal ma waxaan ogahay al-shabaab saan isu sheegnay malaayiin dollar ay aruursadaan al-shabaab waxay isu diyaarinayaan hadda cid ka hadleena ma arkin al-shabaab waxay isu diyaarinayaan inay dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ku yeeshaan dad aad u tiro badan lacagta ay aruurinayaan ay ku maalgeliyaan waliba cidii handadaad shaqeey weysay in lacag ku maalgeliyaan baarlamaanka Soomaaliya soo socdane iyo kuwa hadda maamul goboleedo ay sameysteen al-shabaab juhdi iyo geed dheer waxay u koreen inay dad badan ku yeeshaan ka soo socday federaalkana way ku yaala doonaa ama handadaad odayaasha dhaqanka ha noqoto ama ha noqoto dad ay maalgeliyeen lacag ku bixiyeen ma dhici doonto inuu qof nin baarlamaanka al-shabaab oo ka doodo oo yiraahdo anagoo xisbigaas dib la dhaco baarlamaanka madee qayliyo ma laakiin muxuu suurta gelinayaa wax kasta oo baahi al-shabaab qabaan inuu fuliyo meel kasta oo al-shabaab ka xirantan inuu u fuliyo maxaa dhici doonta marka wasiirku markuu xafiiska yimaado agaasimihi baa shabaab ay la keenay in la yiraahdo wasiir waan kula soconaa shalay waadiga is arkeen ninkii hebel ahay berrina waadiga hebel la balansan daarigaadii ka warqabaabo dib ma lahane ilmahaadina waa tid wiilka heblahay waa kii baasay iskoolkii ka warqabaan waa kii baasay gabadheena waa tii darajadaas heshay in scholarship u heshana waan ka warqabaan markii xogtaas laga hayo xaniiba lagu hayaa Soomaa waxba ma harin al-shabaab waxay isu diyaarinayaan inay miis kasta ee qof dawladda Soomaaliya maanta uu joogo hadduu amni yahay iyo hadduu siyaasad yahay iyo hadduu agaasim yahay inay fariistaan haddaysan qofka yeelan inay mid kale la jooga yeeshaan haddaysan qalbigiisa yeelan inay cabsidiisa yeeshaan Soomaalida garan qataraha intaas la eega soo socda ee shabaab ay tadawur iyo dadaal iyo juhdi ugu jiraan ma arko cid ka hor imaanaysa waxayna aad u koreen waliba 3 sano la soo dhaafay wayna socotaa mana u jeedo cid u jeeda